محمد مركور وسلام يا وانا سلام يا دمان دقيقتياش هذه الدلتر ميلا لميلي جوغان وحن لي رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. runtii su-aashaasi su-aal muhiima weeye. shirka ka socda Cadaado maamulka loogu dhisayo gobolka Galguduud iyo Koonfurta Mudug wuxuu soo maray maraaxil kala duwan waxaana moodaa maraaxishaasi inaanay waxba iska bedelinin waxaana cadeynaya maantii ugu horeysay oo bishii July xamar shirka lagu galay lagu sheegtay dhul aan aysan xukumin maamulkaasi iyo shalay oo markii la doortay ninka lagu sheegay rasuul baarlamaanka la weydiiyay xuduudaada maxay tahay uu yiraahdo waxaan ku dhaqi doonaa constitution-kii ama mataqaana ahdi qarameedkii la ansixiyay oo sheegay ilaa iyo nugaal waxay muujinaysaa inaanay waxba iska bedelmin aad iyo aad bay runtii rajo xumo u tahay Soomaaliya maantay iyadoo loo dabaaldegayo xornimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed in maamul sheeganaya inuu dal iyo dad ka taliyo oo ay dabada ka reexayaan madaxdii sheeganaysa dawladda qaranka inay madax ka yihiin in uu bilaabo nidaam uu ku talagalayo colaad cusub inuu ka bilaabo Soomaaliya inuu nidaam dhisan oo maamul ku talagalo inuu dib deegaankiisa u qaso arrinta tursiinada nasiib darro weeye marar badan baan uu shakhsiyan ka hadlay shirka Cadaado waxa ka soo bixi kara waxaan u arkay mashruuc ay hogaaminayso madaxda muqdisho iyo dawladda federaalka waxaan u arkay mashruuc aan sax ahayn sidoo ku bilowday iyo sidoo ku dhamaaday wax alla wixii heshiisa oo Puntland iyo dadkeeda lala galayna waxa muuqda inaan la tixgelinin marka arintan ma mid hadda bilaabatay muddo way soo socotay arintan dhowr jeer hore adigoo wasiirka waxbarashada Puntland ahna waa ku celcelisay dawladda Puntland waa ay ku celcelisay marka maxaa diiday marka in aragti midaysan dawladda federaalka Puntland iyo waliba dhinacyada maamulka loo sameeyo inay qaataan oo sidii wax loo dhisi lahaa hadda horta khaladku waxa weeye waxa bilaabay nidaamka federaalka dawladda Puntland ay ku asaasantay ku dhisantay maamuladii kale oo dhismayna ay ku dhismayeen wuxuu ahaa qaab hoos ku soo bilaabanaya oo dadka deegaanka deganay ayagoo isu imaanayaan saameynna uusan ku yeelanaynin sida constitution-ka ama mataqan dastuurka dawladda federaalka ku qoran maamul hore u jiray sidaas oo maamulka Kismaayo dadku ka soo Jubbaland dadku ka soo bilowday maamulkii ka dhismay South West waa garanaysaa 6 gobol bay yiraahdeen waxa la 3 gobol maamul kale ka tirsan tahay sidaa darteed waxa loo soo celiyay 3 gobol iyaga u hartay process dadku ay bilaabeen buu ahaa dawladuna federaalkana korkii ka ilaalinaysay waliba Jubbaland waa garanaysaa wixii caqabad iyo hor istaag iyo xanimad ay ku samaysay laakiin maamulkan la sheegay waxa laga sameeyay Cadaado waa garanaysaa marka ugu horeysa dadka kale imaan ilaa maanta ilaa maalintii waxa wadatay dawladda dhexe ajandaha runta loogu talagalay wuxuu ahaa in federaalka dadka la nacbaysiyo nidaamka federaalka in lagu la diriro in faraha looga gubto iyo in colaad loo soo raro gobolada dhexe si meelo kale looga soo raro colaad ka jirtay oo loogu soo raro gobolada dhexe arrintaas dawladda Puntland waa ka hadashay anigu dawladdan ku jira go'aan bay ka gaartay xiriir baan u jirnay dawladda federaalka waxay khasab noqotay beesha caalamka wada socda iyo dawladda federaalka inay soo hoydaan khaladkii dhacay in la soxo heshiiska 14 October ayaa la galay heshiiskaasi wuxuu cadeynayay waxa maamul loo sameeyaa inay tahay gobolka Galguduud iyo Koonfurta Mudug inaysan state ahayn problemku marka wuxuu ka yimid heshiiskii la galay oo ah in la fuliyo oo ka bacdi aan ku dhisnay shirarkii madaxda isu imaanaya oo ka bacdi aan ku dhisnay new dealka oo ka bacdi aan ku dhisnay wada shaqadayadii oo dhan waxa jabisay dawladda federaalka iyadaana ku tala gashay from the markii ugu horeysay ilaa haddeer inay mucaadalada khalado halka waxa ka soo socota khatar weyn oo colaad ah oo deegaan dadban yihiin oo la yaqaan oo maamul ka tirsan in la qaso arrintaas waxay u baahan tahay go'aan degdeg in laga qaato dawladda Puntland waxaan qabaa inaanay fiirsan karinin waxa halka ka socda waata marka dawladdii adigu hadda aad ka mid ahayd wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare aad ka ahayd adigu ma kula tahay in dawladdaasi ay ka gaabisay doorkii looga fadhiyay arrimaha xuduudaha Puntland arrinta madaxal badan bay soo martay waani ku sheegay hadda koor go'aan baan qaadanay go'aankaasna go'aan geesinimo leh uu ahaa go'aankii saxay buu ahaa khaladkii meesha ka dhacay
waxaa khaldamay in go-aankii lagu adkaysto waxaa khaldamay in dawladdu mar labaad intay qiimayso mawqifkeeda ay go-aan qaadato anigu marar fara badan baan ka hadlay lagana yaaba inaan eeday hadalladaas qaarkood waxaan u arkaa maantay inaanay dawladda puntland ka aamusi karin waxa meesha ka socda maxaa yeelay waxaa laga hadlayaa waxa weeye colaad cusub waxaa laga hadlayaa xuduudeedii oo la duminayo waxaa laga hadlayaa dib in loo soo nooleeyo wixii soomaali ka gudubtay oo walaalnimadii iyo wada degaanka ahaa waxaa laga hadlayaa degaan aan la lahayn in la sheegto oo dad aan degaankaa deganayn ay sheegtaan waa wixii soomaali isugu kooday waa wixii dagaalku ku bilowday waa wixii hantidii iyo midnimadii iyo wadajirka ummadda soomaaliya ku burburtay waxay u baahan tahay marka maanta xadka in lagu joojiyo waa ambaaraynay waa eedaynay madaxweynaha la eedeeyey federaalka ra-iisul baarlamaankaa la eedeeyey ninka wasiirkaayo meesha dhex fadhiya oo fankii dawladda federaalka oo dhan halkaa loo leexiyey oo ciidamada mushaharkooda halkaa loo leexiyey oo wasiirka arrimaha gudaha oo meel kasta kusoo qoraya xuduudda gobolkaasi waxa weeye nugaal iyo burtinle ayaa la ignoor gareeyey maanta waxay u baahan tahay go-aan geesinimo leh inay dawladdu qaadato inaan ka tirsanayn inaanan ka tirsanayn waxba ka bedeli mayso qofkii ugu badnaamaa ka mid ah gobolladaa ka hadlay arrintooda waxaan rajaynayaa dawladda maanta dhisan oo madaxweyne cabdiweli madax ka yahay maantay go-aankii saxda ahaa inay ku dhiirato oo dawladdan sheeganaysa federaalka ee burburinaysa federaalnimadii oo puntland integration inay kala goyso kala burburiso u socota oo taageeraysa maamul ku dhisan dastuur khalad ah ku dhisan anigu waxaan qabaa arrintaasi inay tahay khatar ay u baahan go-aan in laga qaato waxaan qabaa waxaa sharciyada u dhow shirka ka furmaya galguduud magaalada la yidhahdo dhuusamareeb ayaa sharciyada iyo xaqa uga dhow midka ka soo baxaya ee meesha la yidhaahdo cadaado waa tahay marka dawladda puntland mawqifkeeda horey waa u caddaysay ilaa iyo haddana wax isbedela ma muuqdo oo dhinaca maamul sameynta ama shirka cadaado ka soconaya marka adigu hadda waxaad tilmaantay inay jiraan hadallo kala duwan oo eedeemo ah oo inta badan shirkaasi aad jeedisay oo dhankaaga xitaa inaad eeday maxaa taa iyada aad ula jeedaa adan waxaan ula jeedaa anigu qadiyadaas aad baan uga hadlay golaha wasiirada iyo dawladda iyo shacabka waad garanaysaa intaasoo jeer baan gobolka tegey bulshada gobolku waa u diyaar dalkooda iyo degaankooda way yaqaaniin waxay u baahan yihiin leadership iyo hogaamin bay u baahan yihiin leadershipkana waxaa ugu horeeya iyo hogaaminta dawladdu inay qaadato dadku degaankoodii bay degan yihiin way iska difaaci karaan wax alla wixii dulmi ah laakiin documentigan iyo warqadahan laysugu imaanayo oo shalayto aan markaan islahayn ninkii loo doortay baarlamaanka waxbuu saxayaa oo wuxuu noqon doonaa nin garan kara weliba maalmaha la doortay waa maalmihii xorriyadda ummadda soomaaliyeed iyo wadajirkeedii iyo isomaatinka waqooyigii koonfur iyo dhismihii dawladdii soomaaliyeed maantay 25 sano ka bacdi wuxuu fahmi karaa waaqaca soomaaliya wuxuu ku hadlay ummadda puntland iyo ummadda soomaaliyeedba waa maqashay waxaan filayaa madax meel ka saraxa ma jirto waa dhammaatay waktiga la eedayn lahaa jawaari waa dhammaatay waktigii madaxweyne xasan la eedayn lahaa waa dhammaatay waktigii madaxa dawladda la eedayn lahaa waa dhammaatay wiilasha junioriska wasiirada ah oo dhallinyarada ah oo dhex fadhiya cadaado waktigii la eedayn lahaa waxay taagan tahay waktigii bulshada puntland iyo shacabkeeda loo horseedi lahaa in ay go-aan rasmi ka qaataan halkaa waxaa ka soo baxaya la saxo wax alla wixii alternative ama xuluul marka maxaa ka imaan kara marka maxaa ka imaan kara marka haddii hadda sida hadda ay wax yihiin haddii ay wax u socdaan wax weyn baa ka imaan kara waxaa ka imaan kara in madaxweyne sidaa lagu doorto waxaa ka imaan kara in beesha caalamka u fahamto inaan wax ka khaldan shirkaan jirinin inay puntland ka aamusan tahay inaysan waxba ka qabinin puntland inay eedayso ama qoraal qorto iyo bayaan mooyaane waxaa iman doona marka in sida ay documentiga ay ku gasho iyadoo la ogyahay xuduudda dadkaani kala leeyahay oo international partiska ama mataqaanaa dadweynaha adduunka iyo unsom kulligood ay markhaati ka ahaayeen markii la qoray heshiiska 14 October la yidhi maamulkana waa ku meel gaar waa gobol iyo bar waxaa laga samaynayaa koonfurta mudug weeye ma aha inteeda kale halkaasuu khuseeya in marka dib loo socoliyo iyadoo ay la adeegsanayo dawladdii dhexe oo ummadda u dhexayn lahayd oo constitutionka ilaalin lahayd oo garanaysa inaan state iyo aysan dawlad goboleed jiri karin haddaanay laba gobol iyo ka badan ka koobnayn waxaasoo dhan baa khaldami doona waxaana loo arki doonaa waxaa la gashaanti aamuska lagu meheriyaaye puntland inaanay aamusan tahay waxna ka qabinin halkaa weye marka meesha khatartu ka imaanaysaa annagu la tartami mayno puntland la tartami mayso maamul gobol iyo baro hadda dhismahaya
awoodiisa iyo xuduudiisana la yaqaano laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeye waxa ka khaldami doona adduunka sida loo arko maamulka Puntland mustaqbalkiisa dhismihiisa goboladu ka kooban yahay waata marka ugu dambeyntii xalka marka muxuu yahay oo marka arrimahan oo dhan lagu soo afjiri karaa xalku laba dhinac weeye mid waxa weeye Puntland inay mowqifkeedaas cambaaraynta iyo eedaynta u bedesho mowqif rasmi ah oo ah inay kalsoonidii kala noqoto dawladda federaalka haddaanay arrintan degdeg wax uga bedelinin qodobka labaadna waxa weeye shirarka xalaasha ah oo haddaba uu ka mid yahay midka ka dhacayo dhuusamareeb oo caddaystay inay ka baxayaan labadii qodob oo lagu haystay oo ahaa laba gobol ma tihidin beledweyne qayb ka mid ah ama beledweyne ku darsanaya gobolka hiiraan iyo inay yidhaahdaan sheegan mayno anagu degaan walaalahay degan yihiin aanu darisnahay walaalnimo naga dhaxayso shirarka noocaas oo kale ah inay Puntland xoojiso anigu waxaanu arkaa labadaaba inay ku shaqayn karto Puntland waa raqam culus adduunka Soomaaliya waa raqam culus bay ka tahay ummadaha adduunka Soomaaliya kaalmeen raqam culus bay ka tahay hadday istaagto waa la dhageysanayaa waxaan filayaa madaxda dawladdu inay qaataan qaraar geesinimo leh oo ummadda Puntland ay u horseedaan in lagu ilaaliyo Soomaalinimadii iyo wadajirkii loogana fakaro dagaal sokeeye oo ka dhaca gobolka Mudug